sida rubaankan oo kale qofkii boqorka abuurtay oo koban barihiisa muxamedna sallallahu calayhi wasallam la dhacsan xisaabta iyo jannada iyo naartuna sidiisa oo kale ugu muuqdaan maabka runtana garta waxaa la yidhaahdaa xog oge ama caalin kii hawadiisa sida boqorka u okoban oo aan muxamed sallallahu calayhi wasallam bare u ahayn oo aan berri u darbanayn oo aan maabka runta garan waxaa la yidhaahdaa xogmooge ama jaahil miisaanka aadanuhu ku kala culus yahay muuqaalka iyo magaca toonna ma aha dhalashada iyo dhaqashada toonna ma aha dhedignimada iyo labnimada toonna ma aha xoogga iyo xeesha toonnana ma aha miisaanka lagu kala culus yahay waa xog ogaantaas iyo xogmoogaantaas amase caalinimadaas iyo jaahilnimadaas rubaankan xirri waa xog oge naaquudaha uu xidhan yahayna waa xogmooge sidii carruur orgabba shabeel oo dadin ku jira ku dhaygagsan naaquudihii iyo shantiisii wixii la fale oo rubaankii ku amakaagsan oo afka kala wada haya ayaa hir caraysani dariishad soo jabsaday markabkii oo mawjad baarkeed sii laacahaya intaan laba tukaysdayn ayaa qolkii il tirmay sidii dhagaxdixeed culus ayaa hooyadii shiidday dabaal aqoontiise intay sabbeeyeen ayay dadka sare ku shareermeen guulwadihii ay dhashay ayaa suuranintii ku tebay suu meeshii ugu dambaysay ayuu uga quusay say waa qabsatay markabkii ayaa foorarsaday rubaankiina inta yara quusay ayuu albaabkii furay saabiyihii baa dillaamay masarraqda meesha taali waa guulwadihii iyo hooyadii oo haddiiba fuuray maansha nebigii salallaahu calayhi wasallama dabaasha carruurta waalidka kala dardaaran buuya rubaankii iyagoo wada dhushuqa oo la moodo inay dibir xilla ka tooseen oo wada bardadsan ayay raqdii ku wada dhaygageen hinraagga iyo neeftuurkooda waa aad maqlaysaan maxaa mid yeeryeera looga waayay mid waliba muraayaddii geerida ayuu isku eegay oo isu muuqday isagoo maydka hor yaal oo kale ah xogmoogayaasha ummadaha xukumaa cidna uma garaabaan jeer godkooda biyo ugu soo galaan sidii goosan yeeyi gashay waxay la dhangaraariyaysan yihiini waa sigasho keliya sidii dibi ilqooreedda halaq ka arkay oo sii hubsanahaya ayuu naaquudihii rubaankii jalleecad damiinadha jalleecay oo yidhi waa aan ku masaabax markabka aynu saarannahayna waa kaas noloshayaduna waa uun albaabkii aad naga furtay goorma goorteed buuya rubaankii isagoo aan lib iyo gallatoonna wejigiisa laga garan cirkii oo horeba u gamaamadnaa ayaa gabalkiina u dumay waxyaalaha alle aadanaha ka qariyey waxaa ka mid ah nolosha qalwada nolosha iyo maqanta qalwada noloshu waa khaliya xaya ama living cell sida loo yaqaan labadaba intaas aadanuhu waa raad goobahayaa misena ma helo kamana haro nolol baradyadu waxay qalwada nolosha u sii qaybiyeen qalwo baradyo ama cytologists had iyo goor quraaradaha weyneeyaha indhaha ku fagiijinahaya si ay u ogaadaan waxa qalwadu ka unkantay iyo siday u unkantay ama dabeed siday u korto oo u taranto qalwo baradkii baaristeeda warjacayl u geeyo si yaab leh ayay abuuraheeda ugaga warrantaa kiise u baranahaya
xogta nolosha inta xaddeed dabadeed wax noolee waa tuug feeyigaan la'aan iyo faduul isku darsaday qalwabaradkan waxaa ka sii faduul badan kuwa baafiya furayaasha maqanta oo allihii ilaah fogaystay baafinta furayaasha maqantu waxay waalli gaartaa goortii walwalka iyo walbahaarku fulannimo u dilaacaan oo fulannimadaasi xajiyayaasha caqliga iyo kuwa caqiidadaba giijiso oo liilamadooda dhudaha ka jarto oo la gilgilmo oo gees walba la dago oo geesinimo bidhaanteed muuqan weydo waa goortaas goorta xogmooguhu hodmo faaliyuhuna ku haashado duqa naaquuduhu nabadoonka ula baxay waa faaliyo fangoran isagoo basaaskii ilayskii gacanta u ifinahayo oo tusbixiisii shayddaan kalwinahaya ruye heehee cuqlaa soo kuday isagoo madaxa ruxahaya markabku degi mahayo waase caari'i doonaa min walaal waa jaamac waa maydka fuursan oo ina hor yaal min saddexaadku waa ximre waa inaan dhiig daadinna gacanku harku waa yulkhad dhiigga waa in laga daadshaa dhadig ama uurku har cuqlaha iyo jaamaca haddii layscunsiiyo cuqlahaa hara uurku jirta uurku harka waa in markabka bidix iyo midig looga seeraariyaa ximre iyo yulkhad haddii layscunsiiyo afyuu bay dhalaan walleexeeb haddii laga caariyo dibu socod badan ayaa ina ka dabaalan doona basaaskii oo faalku hiyidiila ku baraarujiyey baaye uurku har dambiilihii dibu socodka ugu weynaa dhalay oo uu ka dabaashay anaa aqaan waa ina wacays tan dhashay baaba ka sii daran waxay ula baxday ciilmooge naaquudihii hoggaankiisii qabka oo takhtarka ahaa ayuu ku yidhi waa amar inta wada suuxisid iyadana badda ku siddi isagana googoo sida faalku sheegay oo ku dhaqso naaquudaha ayaa doonahaya jeelka kaga soo saar si aan loo dareemin duufaantan oo ina ka joogsata ayaa wax walba inoo ka daran hawraarsan buu yidhi takhtarkii dadqalka ahaa inta sara joogsaday jaahiliyaddu waa dhunkaal waxayna sii qooshantaa goortii ay faal cuskato oo ay wixii uu sheego fuliso qolkii qalliinka isagoo ku sugahaya oo mindiyihiisii u lisan yihiin ayaa ciilmooge iyo hooyadii loogu soo geshay ceebli ma dareemin waxa qolkii qalliinka oo mugdiga ah duufaantaanina dhacayso loogu soo miray ciilmoogana baldaaba dadqalkii albaabkii ayuu u xirtay cod dhuuban oo aan dareen qabin caata iyo diibsa laga garto ayay waxay ku tidhi ma nabadba saaguudkeedii oo sidii markab gebi ka laalaadan laantii laydhii qarqarkeeda ka soo geylaamisay iyo dhabankeedii oo dhiiggii marcuudku ku gaagaxay asaan weli gamashiin iyo sanqaroorkeeda sidii kambaqalyaha loo shubay iyo hoomaygeeda hooyo oo ay ku dul hayso soo jeedka ciilmooge oo sacabkeeda midig dhacdiid u barkan ayaa araggiisii isku mar wada qabtay saakhasnaddii qalbigiisa oo sagaalka ku xirrayd ayaa hal wareeg alla furay saa ciilmooge oo aan weligii hanqalaalkeeda iftiin ku arag ayaa qoslay say iyana intay jacayl godlatay oo dhool birisay bay dhunkasho iskala hayn weyda saa khayrka xalladdiisa qoollayda iyo ilmaheeda ka nuurahaya iyo khayaanada lala gaadahayo foolxumadeeda ayaa qalbigii dadqalka isku khilaafay saa khasnaddiisii ayaa wareeggeedii labaad furmay oo dabcay
dareen la'aanta ka sokow qisadu ceebla qoolay waxay ugu naanaystay waa tab iyo tabar la'aanta waa maato waa warla waa waxla wax u miciinaana ma muuqdaan waxaa lala maagan yahayna waa moog yihiin iyada waa in la mudaa waa inay suuxdaa waa in badda lagu sidbiyaa waa inaan eed iyo aarsi toonnii ka dambayn ciilmooge waa in la tarajiyaa kellidiisa bidix iyo beerka waa in markabka bidixdiisa laga seeraariyaa kellidiisa midig iyo wadnihiisa oo haniyihii laga gooyeyna waa in markabka midigtiisa laga seeraariyaa naakhuudaha iyo faaliyihiisu waxay sugi la'yihiin inta dadqalku dhiiggiisa ka farxalanhayo in alle ma eexda yahay garsoorka maxkamad ka yahay malaa'igtuna mara ka tahay miisaankuna saxan yahay maankaba kuma hayaan isagoo aan juuqu odhan ayuu wiilkii ka qaaday oo shilalkii dhacadiid ugu legday ceebla ayuu kursi salmuggu ugu fariisiiyey ilayskii ayuu gacanta midig u gashay si ay gacanteeda bixiix ugu ifiso geerideedana ugu ciidamiso si uu halbowlaheeda u muujiyo inta dhiigga ku rooriyo ayuu xididoosheeda bidix xoog u tuujiyey bartii uu islahaa halbowlaha ka ogog leh ayuu irbaddii kaga joojiyey say inta jinnatay bay tiri suu inuu halbowlihii la waayey intuu gartay ayuu ka soo siibay suu meeshii hore u ogog leh ayuu holliyey say waa jirroorsatay suu leebkii boocuu soo nuujiyey bal in dhiig soo raaco suu waa ku hungooday suu mar labaad ayuu ka soo siibay suu inta faraha u laabay oo ramal ku dhuujiyey ayuu meel saddexaad kaga joojiyey suu waa la waayey oo ka quustay suu wuxuu goostay inuu cududda kore kaga miidaansho saa markabkii ayaa si xun u dheeliyey suu inta simbayl u finiinay oo dibir seexato u dhacay ayaa irbaddii ka jabtay ciilmoogana miiskii ka duulay ceebli intay gurguuratay ayay wiilkii laabta soo gashatay oo derbiga iskula nagaadhisay dadqalkiina inta xaaxaabsaday ayuu boocii irbad labaad ku daabtay ceebli ishay ka mirigsiinaysaa waxay ka dhigan tahay neef la shiraysanahayo oo aan mindida loo lisanahayo maqlahayn sidaan maqanta alle loogu gacandhaafi karin oo kale inaan loogu gacandhaafi karin nafta uu keliga abuurtay jeer haddeedu gasho naakhuudaha iyo faaliyihiisa jaahillada ahi ma qabaan waxaa la mid ah takhtarka dadqalka ah oo aan qabin in allaba jiro inkastoo alle qalbigiisa iyo qudhiisaba si yaab leh u xukumo hoggaankan qabkuma qabo in isaga alle qalab dheganugul ka dhigan karo oo uu taladii uu doono ku dhashan karo oo weliba isagoo aan dareemin taladaas ku fushan karo oo uusan misana lib iyo gallatoonna ugu hayn allihii ceebla iyo ciilmooge naftoodu gacantiisa ku jirtay ayaa dadqalkii oo aan garan ilmilicsi ka yar khasnaddiisii qalbiga 7 wareeg oo u xidhnaa mar keliya ka wada furay oo inta labadan miskiin ka sabay 2 manaxe oo isaga ku soo diray iyagii ku salladay
carooday gaddoomay oo irbaddii waalaayadii suuxiska ka dhiijiyey oo iska tuuray 2 quraaradood oo xirxiran iyo 2 koob oo cabbira leh iyo ilayskii ayuu albaabka iskala sii daayey inta qamuunyo isku kala gooyey naaquudihii iyo faaliyihiisii oo sugahayey ayuu ula galay quraaradihii ayuu inta isugu barxay midba koob uu cabbirkiisa u miisay ku xaabshay suuye faalalowgii macaana kolba waa dawe jaalle waa maxay isagoo albaabka ka sii baxahaya buuye tranquilizer waa lebiso ceebla oo mugdigii ciilmooga la cuskugta ayuu ilayskii ku qabtay oo af ingiriis ku deexday they are fools and they have made me a fool for so many years. What is the causal connection between this innocent poor infant, his heart, his kidneys, his liver thrown across the ship, and storms, hurricanes, and weather phenomena? Nothing, nothing, nothing. No causal connections whatsoever. Damn soothsayers, damn sorcerers, and damn their believers. I shall never take their orders. How many innocent people had I mutilated or killed on the order of this ignorant captain and his soothsayers and sorcerers? Just a moment ago, I was about to kill this beautiful infant and his charming mother. But why? Why? I got my reason, and instead of slaughtering these innocents, I threw the 2 saddest criminals into trance. Say ceebli intay ingiriiskii garatay ayay suuxday. ingiriiska ceebli ka suuxday Soomaaliga wuxuu ku yahay waa caaqiyo anna sanooyin badan bay caaqiyo iga dhigteen. ilmahan murjuca ah oo aan eediba taaban wadnihiis iyo keliyihiis iyo beerkiis oo markabkan laga seeraariyo iyo dabaylaha kan iyo duufaanaha kan dunida maaruqay xageeba dhacdadooda iyo ka dhalashadoodu isaga xiran yihiin meelna isaga maxira go'a faalalowyo go'a falanfalowyo go'a wixii uga qaato weligay waa dambe amar ka qaadan mahay intee baan dad aan eed lahayn naaquudahaas naxdinku raaxaystaha ah iyo faalalooyadiisa iyo falanfalooyadiisa amarkooda ku dilay oo ku googooy wax yar ka hor waxaan sigay ilmahan quruxda san iyo hooyadiisaan gacalada ah bal maxay dhimeen intaan labadan dili lahaa labadii naxdinku raaxayste oo daalnimada ahaa ayaan barsaqa ku shareer qaybta 6 oo maabka runta tusmadeeda 59 waxay leedahay furayaasha maqantu alle agtiisa ayay yaalin isaga maahee cid kalena ma oga wuxuu og yahay waxa biriga iyo badaba ku jira caleenina geed kama dhacdo ogaalkii la'aanti iniin carrada gudcuradeeda taali iyo waxuun qoyan ama waxuun qalaani ma jiraan oo aan kitaab dharaar ah ku qorayn tusmadaani afkii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxay ku tahay وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كل كفلنimadu talada maqanta calwiso qalbigii ay ku jirto tusmadan 10 iyo 8 eray ama xiriirka dhacdadiya ka dhalatadu faalalow ma mihin kareen dambina faraha uma gelin kareen uunka maqanta iyo uunka muuqatadu waa laba alla isu daba joojay sida habeenkii iyo maalinta uunka muuqatada isaga wuxuu ku sii fududeeyay lamaanooyin sida iftiinka iyo gudcurka qabowga iyo kulaylka macaanka iyo kharaarka iyo dhacdada iyo ka dhalatada qofkii hubsada ka dhalata kasta in dhacda ku wacnayd iyo siday isugu xiran yihiin maqanta furayaasheedana in alle keliyii haysto ogaada faal ma dhigteen fulannimada maqanta furdaaminteedu
waa garashada la garto dhacdadiyo ka dhalatada iyo ogaanshaha la ogaado maqanta furayaasheedu meesha ay yaalliin noloshu waa badweyn waxaa alla u abuurtay kitaabo qofka iyo ummaddaba waa lagu kitaabshaa badweyntaas ummad waliba waa inay u leedahay markab u hayina markabkaasi waa inuu calan iyo magac leeyahay u gaara si maraakiibta kale looga sooco sidoo kale waa inuu naaquudo leeyahay waa naaquudahaas waxaa markabka haloosinka ku dhoofiyaa ama halligaa markabku markii uu 4 isla helo ayuu haloosinka ku dheefi karaa marka hore waa in ummaddu ku dhoofidiisa aaminka ku qabto marka xiga waa in naaquuduhu leeha badda iyo markabkuba lihida u yihiin oo kobanaado mar saddexaadka waa inuusan maabka runta isha ka qaadin mar afraadka waa inuu miyir qabaa waxaa qisadu inoo soo xooxisay bal ku dhoofid aaminku qabidaaye in markabku xabsi yahay ummadduna maxaabiis misana waxay ina xusuusinaysaa in naaquuduhu leeha badda iyo markabkaba ka fallaagoobay oo uu jiriddiisaba dafirsan yahay waxay kaloo inoo xaqiijisay meeshii la rabay inuusan maabka runta isha ka qaadin inuu faduul iyo aabi mid beenah u qortay tan keliya oo hartay waxay ahayd inuu miyir qabo miyirkiina waxaa ka qaaday takhtarkiisii hoggaanka qabka u ahaa oo waa kii lahaa barsakhan ku shareer intuu xashiishad waraabshay waa siduu yidhiye barsakhuu ku shareeray barsakhu haddii uu yahay maranta aan aakhiro iyo adduunyo midna ahayn waa meesha caawa naaquuduhu ka laalaado xashiishaddii ayaa inta xajiyayaashii xishoodka ka jartay dhallaan oo kale ka dhigtay suu inta salaq dhawday oo farax dhaafay ayuu iska wixii la faanay oo tahanti baanay dhega dhukaygii laga catireeyey aynu baanisooyinkiisa ku dhegaysanno naaquudihii haddaaya waa qarwahayade haatanuu soo jeedka ku ciyey oo isagoo cadhaysan yidhi ha halligmo markabku baaxad sooraha moolkiisa ha ku halligmo xeebtii iyo marsooyinkii goortii aan geshay sow farsamo aqoontii kama wada dabaalan waalidkood carruurahoodii
ooryahoodii iyo cidahoodii oo dhammi saw ilama saara ma waxay moodeen inuu keligay ilaha ligmahayo waa wada dibu socod daba dhilif ah isticmaar u adeeg baa gashay intaan laayay ama libaax jidka ka helay maaha intii kale haddaa maraakiib isticmaar bay ka adeegahayaan markabka iyagaa horay u halligay diiraddii iyo raadiyayaashii iyagaa ka kharaabshay dakhallada iyo shukaanta iyagaa masaamiirta u wada dabciyey naftadii iyo biyaha iyagaa matoorada isugu barxay shidaalkii iyagaa badda ku dhuray duufaantan markabka iyagaa u kaday iimaanka allaha ka qaade halkaas goor uu marinahayo ayay hooyadii mata ka wareegtay suu inta indhaha ku gubay buuye nayga durug dibirtii matag ha iigu darin say garbasaarteedii bay qaar mataggii ku tirtirtay qaarkii kalena afka ku qabsatay oo iyadoo ilqooreedda ka milicsanaysa derbiga ku durugtay oo sidii hanqaraaricii isgamaarisay rubbaan guyaal badan xidhnaa oo waa hore naakhuudaha ka diiday inuu maabkiisa habaabiska ah markabka ku wado mar haddii uu tuuray maabkii runta ayaa naakhuudaha loo soo furay rubbaanku waa garanahayay in loo soo furay inuu saha iyo saadaasha wax ka sheegi karo iyo in kale wuxuu soo gaaray hiifkii iyo haaraankii naakhuudaha si aan dheeldheeliga markabku u ridin ayuu darbiga isugu tiiriyey oo isugu adkeeyey oo murugsatadiisa midig oo uu ruxruxahayo naakhuudihii ku fiiqay oo yidhi waa moodahayey in kibirkaagii ku magowsiinahayo hiif iyo haaraan iyo calaacal iyo catow waxaa tahay been low rabbi ka furtay war daba dhilif ma jiro oo dibu socod ma jiro oo curyaamiya ma jiro oo isticmaar ma jiro war meeye haddii ay jiraan war waxaan ku leeyahay waa shayddaammo aan muuqan oo maalintii madaxaaga harsada habeenkiina ku hoyda war markabkan ummadda adigaa halligay adigaa tuuray maabkiisii runta ahaa oo 6,000 iyo 100 iyo 30 iyo 3 tusmo amase 100 iyo 14 qaybood ahaa waxaad u jeexatay maabkaaga 114 qaybood ah oo beenta iyo baadilka ah waagii aad jeexanaysay makaala teliye markii aad markabka ku wada itirise sow kaama diidin sow digniintaas iguma adxirin saaka maxaad iga doonaysaa war badda iyo dabaylaha iyo daruuraha maadigaa iska leh war markabkan iyo ummadda saaran maadigaa samaystay waadigii sidii alle laguu ammaanahayay dabaylaha jooji ama daruuraha cirka ka xayuubi ama badda xawaal ka dhig bal intaas inaad yeeli kartid iska daaye carar bal adiya la taliyayaashaadu sare joogsada war farsamo aqoontii iyo waxgaradkii adigaa markabka ka daadshay sawtaad odhan jirtay maaha hanqaraarac lug ka go'day uma dhutiyo war waa maxay saaka haaraanku war raggu waxay dabaasha badweynta ugu bareereen waa 5taada ba'ood oo baas oo aad 5tii diin islaamka ku beddelatay waa beentaadii waa bidaalkaagii waa basaasidaadii waa bajintaadii iyo beerdulucsigaagii aad hadba qolo beerdulucsan jirtay goortii aad qolo kale soo baabbi'isay war jaahil yahow ma aad garan in jaahilnimadu kibir dhaliso kibirkuna talaxumo dhaliyo talaxumaduna
halaaggan oo kale dhaliso. rubaankii oo aan weli hadalkii dhammayn ayaa naaquudihii ka dhex galay ooye war kuuma aan soo furan inaad i caydid ama ila akeekantid markabkana aniya adiga kelihii ma saarin ee ummaddeennii oo dhan baa saaran saadaasha iyo sahana adaa soo bartay baa la yidhaahdaa waxaad saadin kartid iyo waxaad samayn kartid midna saaka ma la arkaa suuye waxaan saadin karo iyo waxaan samayn karo midna lama arko waxaase suurowda 3 waxyaalood haddii aad isku dartid in alle duufaanta dadka ka sabata bixiyo marka hore inaad alle u toobad keentid oo u qiratid inaan tab iyo tabartoonnihii kugu harin ummaddana aad ogaysiisid marka labaad inaad maabkaaga baadilka ah ummadda horteeda ku jeexjeexdid marka saddexaad inaad ummadda horteeda alle kaga ballanqaadid maabkiisii runta ahaa inaad marka ku wadi doontid naaquudihii oo aan weli odhan jawaabtii uu u halladay ayaa waxaa ka hororsaday hoggaankiisii qabka ooye horta anigu haddii aan ahay hoggaankii qabka ma qabo in allahaad sheegaysaa jiro oo haddii uu jiro maannu aragno teeda kale 12 gu ayaan ummadda ka furdaaminaynay wixii lagu falay oo ahaa inay qabeen in alle jiro kolkii duufaantu ina gilgishay haddaynu nidhaahno misna qaba in ilaah jiro waa ku ceeboobaynaa waa garanahayaan in cabsiyi ina ka keentay markabkan weligii duufaani waa ku dhici jirtay weligayana alle ma baryin saakana baryi mayno adiga iyo wixii kula qabaa inuu jiro barya haddii uu jiro oo idin bixiyo waa idinla baxsanaynaa haddii aynu halligannana weligeeda maraakiiba halligmi jirtay naaquudihii hoggaankiisii qabka oo uu horayba ula qabay alle dafiridda taladii kuma qaban naaquudaha iyo hoggaankiisa qabku waa jaahillo waxay la garaad yihiin dhallaanku ma qabaan wixii ayan arkahayni inay jiraan haddii aad nala shaqayn weyday salkaagu waa jeelka waanaad ku dhimanaysaa buuya naaquudihii inta isha bidix dabay oo madaxa si dhaar laga garto u ruxruxay oo sigaarka xaggiisa u soo afuufay marka naaquuduhu intaas israacinahayo rubaanku waa maahsan yahay oo naxdin laga garto ayuu la maqan yahay naaquudihii inta gartay in hadalkiisii dhaafay buuye imaqli aad mahayn inta baraarugay buu yar rubaankii waa runtaa ee iigu celi waxaa tidhi suuye waxaan ku idhi haddii aad nala shaqayn weyday salkaa waa jeelka waana aad ku dhimanaysaa saadhaartii intay daahii tiiraanyada ka fayday ayuu farax dhaqaaqay oo qoslay say waa yaabeen suuye hoggaankii qabku kolkii hore waa aad gamiinsanay oo naxdin baad la miyir la'ayd haddana kolkii lagu yidhi jeelkaad ku dhimanaysaa farax baa inta kaa muuqday baad weliba qosol isla hayn weyday ma noo sheegi kartaa waxaa naxdinta iyo faraxa isugu kaa beddelay suuye marka aan naxsanaa miyirkaygu wuxuu la jiray oo aan daalacanahayey maabkii runta oo kibirku idiin diiday inaad markabka ku waddaan tusmooyinkiisii jinniga
iyo insigaba tusahayey dabka cadaabta waxaa si wacan iigu muuqday dabkii cadaabta oo sida qorraxda u kakoonsan oo hawada sabbaynahaya oo 100 jeer ka kulul kulka layskula dhalaaliyo birta kroomka iyo alumiinyada waa 135,000 oo heer waxaa kaloo sidaad hadda iigu muuqataan si ka wacan iigu muuqday idinkoo 7 saf ah oo hayin la moodo seesarka lala laydinku sido oo dabka cadaabta dekadiisa laydinku caashaqay oo silsilado laba dible laydinku wada dhuujay oo jilbaha laydiin wada arrumay oo aan suxud saaxid laydinku arag oo malaa'ig araggeeda laga argagaxaa ay burar birah idinkula wada haliilayso 7 saf oo aan nuuxnuuxsanahayn oo aan indhuhu libiqsanahayn oo jarayaal maqnaatiis ah oo aan muuqan dabka cadaabtu idinku jiidanhayo oo surarkiinnii garbaha ka soo wada rujiyey waxaa iimaan idiin ahaa naaquudahan 6 saf oo kale waxaad isaga u kala xigteen sidaad u kala dambi badnaydeen oo ahayd hoggaammadiinna nabad sugayaashiinna guulwadayaashiinna hooyooyinkiinna nabaddoonnadiinna iyo heesaayadiinna iyo usacbiyayaashiinna waxaad alle iyo addoommihiisa ku fasheen oo masawiran ayaa laydin wada tusay saa waxaa idinka yeertay hoognay markaasaa xumaantiinnii iyo samaantiinnii laysu miisaamay saakafadihiinnii xumaanta ayaa dhulka cuskaday saamisna waxaa idinka yeertay ba'anay kolkaasaad naxdin la wada qoydeen waxaa idin qooyey waa ilmadiinnii dhididkiinnii dhacaankiinnii saxaradiinnii oo isaga kiinqooshmay haddii laydinka yeeli lahaa waxaa idinka muuqatay in midkiin waliba isku furan lahaa ilmihiisa marantidiisa walaalkii iyo reerkii uu ka dhashay oo aan hallayn jirin sidaad alle iyo addoommadiisa ugu digan jirteen oo kale ayaa dabkii cadaabtu isagoo idinku diganahaya mareegtii surka idinka wada siibay laba diblihiina idinka furay waxaad galabsateen oo masawiran ayaa gacanta bidix laydinku wada riday kolkaasaad sidii baqalya galay baqadii la wada yaacdeen kolkaasaa malaa'igtii mid burarkii birta ahaa idinku wada halgaaday oo margiga salkiisa idinkala wada hesha malaa'igtu dhaqays badana saad waa wada gaggabteen idinkoo gaggabsan ayay waxay idiin gasheen labis qiro weyn oo jidhka ku dhega oo laga waxeeyey wax la moodo ramalka garangaraha gaadiidka kolkaasay waxay isku mar idin wada qabteen foodaha iyo gommadaha oo sidii kubaddii idinku wada banaanadiyeen dabkii cadaabta badhadiisii halkaasaad ku baraarugteen olol qiiq madow baarka ku sitaa ayaa hawada isku shareeray dabka cadaabku waa dabyaab leh sida dabka adduunka inuu wax dubo ama dambaseeyo looma abuurin ee waxaa loo abuurtay inuu wax hanuujiyo keliya kolkii uu sarta idinka xayuubiyaba sar cusub baa laydinku beddelaa harraad baad la caqateen saa waxaa laydinku waraabshay mililkii idinka baxay oo fuud kulul ah oo qabsinka jarahaya saad waxaad u qurquriseen sida geela hogadu xareedda qaydarka iyo quraca hooskooda ku xarfatay u qurquriyo goortaasaad ku yiblateen saa waxaa laydinku arariyey
dharkayn iyo dhalaandhuux qabo iyo ugaabdays lagu iidaamay saad waxaad u hollateen inaad ashahaadataan saa afkaa laydin malaasay saacod baa wuxuu idin weyddiiyey maabkii runta ma waan rubaannadii nebi moxamed sala allaahu calayhi wasallama idin soo gaadhsiin saa gacnihiinnaa qirtay lugihiinnuna waa uga marag fureen markabkii iyo ummaddii saarrayd sidaw gasheen baa isla codkii misna idin weyddiiyey saataah iyo jibaad baad ugu jawaabteen haddaad ii weyddiiseen naxdintii aan haddaaye la dammaaday waxaan daalacday xooggaas iyo ba'aas aad ku abaadaysaan inta samooyinka iyo dhulku jira hayaan ama maa daamat isamaawaatu walard rubaankii baa hadalkiisii sii watay oo yidhi kolkii naakhuuduhu i yidhi sheelkaad ku dhimanaysaa waxa ii farax dhaqaajay oo aan daalacanhayay waxay ahaayeen tusmooyinkii maabka runta oo jinniga iyo insigaba tusahayey barwaaqadii iyo baraarihii jannada waxaa ii soo baxay meele dhalaal weyn oo aan markii hore mooday cirjeexdii mase waaba jannadii waxaa kaloo ii muuqday 7 saf oo ku jooga hayin kuraastiisa raaxada badan lagu dangiigsado oo safka hore iyo kan dababa malaa'ig yihiin 5 kalena kala tahay nebiyadii runtiilayaashii shahiiddadii samafalayaashii iyo raacayaashii rabbi iyo rasuulkiisa oo ilaahay mahadii aan ku jiray intaanaanba soo ogog yeelan ayaa saxansaxo carfoon oo uduggii adduunka ka duwani sidii gayrihii nagu daacday saxansaxada waxaa ka soo horreeyey iftiinku xusuusiya midabadii qaansarroobaadda oo kii qorraxda kii dayaxa iyo kuwii nalalkaba ka duwan udugga iyo iftiinkuba waa soo kordhahayeen waxaa noo laacay geedihii jannada ilaa midabadaani waxay ka soo daarmahayeen midhaha geedaha saxansaxaduna waxay ka soo dookhaysay ubaxooda malaa'igtii horay iyo dib naga jirtay waxaa lagu beddelay tii martida soo galbin jirtay oo quruxda udugga iyo raxmadda ka soo shucaacahaya aan afka aadanaha lagaga sheekayn karin hayinkiina laku siday waxaa lagu dejiyey sabadii guryaha jannada hortooda ahayd kolkaasuu wuxuu u gaddoomay kadiifad qurux iyo raaxada loo dhammeeyey oo goobtii oo dhan qarisay guryaha jannada waxaa nagaga gudbanaa waxaannu moodaynay derbi dabadeed si aan ogaannay inay dadab ahayd malaa'igtii waa noo baaqday saanunne laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullaah saa dadabtiibaa mar keliya isgarangarisay mase waa maxay guryuhu sidii kuwii adduunka kuwo la dhisay ma ahayn ee waa kuwo sidii geedaha u soo baxay oo waa qoyan yihiin gogosha barkimooyinka iyo kuraasta lagu dangiigsadaa waa laamo guryaha ku yaal laamaha barkimooyinka ah waxaa ku ag yaal laamihii midhaha oo caynbacayn ah guryaha meel waliba waa naasahaasi waxay leeyihiin iba aan la xidhin ee iyagu isxidha sidii kuwii xoolaha naas waliba wuxuu ku yaal
laan dhuun ah oo sida quraaradaha wixii ku jiraa muuqdaan naas waliba wuxuu inta ku sitaa haruub isaga ka soo baxay oo goortii lagu soo dhowaado isagoo xoorinahaya cabirkiisa buuxsama haruubbadu hadba waxa ku jira bay la mid yihiin oo cabbid ama dhanyo ayay qofka ugu sulxadaan oo weel la xalo iyo mid la tuuraa midna ma jiro geedaha guryaha ahi waxay xiidada kula jiraan 4 durdur oo kala ah biyo muguc ah caano aan suusac iyo kala baxtoonna aqoon khamro kuwa cabbahaya dhadhankooda lagu eexiyey iyo malab miidi la miiray oo aan sidii kii shinnida cunaha gubin xidid waliba durdurka uu galo ayuu soo nuugaa oo laamaha naasuhu ku yaalliin u soo maaxiyaa rag iyo dumarba dadka waxaad mooddaa midho geed ka wada baxay oo bisayl dhuguc ah dumarka waxaa dheeri u sii ah quruxdii dhadignimada iyo xishoodkii quruxdaas qaymaha u yeeli jiray sidii laamihii geedaha oo miidda iyo caanaha xulahayaa ka dhex muuqanahayeen oo kale ayaa dhadigoodka kubabkooda iyo dhudhummadooda dhuuxii laga dhex arkaa hablahaas dihin oo aan jinni iyo insi toonnihi taaban daymadooda xishoodka oo aan ilqooreedda dhaafin qalbiga iyo ruuxaba waa qaboojisaa middood keliya wunsiga timaheeda kuwii haldhaagga la moodo ka soo fooxahaya ayaa adduunkii oo dhan udu ku deeqi lahaa dadkaani ma tiiraanyoodaan oo ma welwelaan oo ma caroodaan mana ciishoodaan ma saxaroodaan ma tagna kabadaaba wixii ay cabbaan ama cunaan waa dhididaan dhididkooduna waa ka udgoon yahay cadarradii adduunka kuwii ugu udgoonaa dhididkaas waxaa udugga u sii dheer meeshii uu taabto isagaa nadiifiya oo uskag iyo injirtoonna lama yaqaan mar haddaan kulayl iyo qabow toonnihi jirin dharka wixii loo qaataa waa uun xarrago iyo xishood rag iyo dumarba waxaa la qabaa xariir baalgoroyo ku xasuusisa oo biyo dahab iyo caano lacageed lagu xardhay waxaas oo dhan waxbaa ka sii wacan waa alle oo araggiisa loo jeellanaa oo la arkahayo oo libta iyo galladda addoommihiisa ka guddoomahaya iyana deeqdiisa iyo ubogiddiisa ay ku mahadinahayaan rubbaankii wuxuu hadalkiisii kaga baxay haddaad ii weyddiiseen farax dhaqaaqaygii aan rayreeyey wuxuu ahaa daalacashadii aan dacalacanhayey barwaaqadaas iyo baraarahaas jannada oo aan ku abaadayno inta samooyinka iyo dhulku jirahayaan ama maa daamati samaawaatu wal ard